Waxaan wanaagsan dhammaan qiyaarteena daawanaysa meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada qaybta ugu dambaysa sheekada kooban basaaskii ama qirashadii basaaskii ugu halista badnaa ee ka dhex shaqaynaya muqaawamada dhexdooda. Qaybtii hore waxay noo joogtay markii lagu ballamay kulankii maadaama isaga iyo xubno kale ay soo qabanqaabiyeen shir aanan caadi ahayn oo la doonayay in lagu shirqoolo xubno kale. Sidoo kalena waxa uu sharaxaad uu ka bixiyey xiriirkii uu la lahaa Fu'aad oo ka mid ahaa hoggaanka Islaamic Jihad. kadib markii lagu wareejiyay xogtii hay'adaha sirdoon ee Israa'iil, sargaalkii Mina lagu magacaabayay waxaan ka helnay buu yidhi abaalmarin gaaraysa 300 oo shekal, waxaana uu ii qabtay ballan kale si waraysiga xiga aan u qabto ama aan u bixiyo macluumaad dheeraad ah. qaybta xigtaana waxay ku bilaabanaysaa sargaalka lagu magacaabo Xamdi oo ka tirsan muqaawamada isaga oo raacaya tilmaamaha ay siiyeen saraakiisha sirdoon ee gumeystaha wuxuu si dhaqso ah marba marka ka dambaysa uu ugu dallacayay xilalka ugu sarreeya ee muqaawamada. intaasi kadibna waxaa dhacay ololo xarig ahaa oo loo geystay saraakiil iyo dagaalyahanada ka tirsan Xamaas iyo Islaamic Jihad. shakhsiyaadka ololahaasi lagu xiray waxaa ka mid ahaa basaas Xamdiya si aana looga shakin, waxaana uu sheegay in 2 maalmood kadib xiritaankiisii loo yeeray si halkaasi baaritaano loogu sameeyo xooga badanna uu bixiyo. kadibna waxa uu yidhi waxaan xafiiskii ugu tegay sargaal Mini, waxaana isagoo ka hadlaya arrintaas uu yidhi wuxuu ii sheegay in gebi ahaanba qalabkii militari ee dhaqdhaqaaqa Xamaas ay ogaadeen halka uu yaallo, loona soo raray Osama al-Muzaynina iyo sidoo kale inta badan dhallinyaradii Shujaaciya oo ay ka mid ahaayeen Khalid al-Diib, Moxamed Abu Hayn, Hani Abu Hayin iyo sidoo kale xubno kale. waxaana la soo hadal qaaday Munthir al-Saraawi iyo Nabil al-Saraawi. muddo ku dhow 7 kadibna waxaa la ii bedelay xarunta asluubta ee Naqab ama Negaaf muddo 4 bilood ah. kadib markii aan 50 maalmood halkaasi aan ku jiray, gaar ahaan xabsigii, sargaal Mini ayaa ii yimid waxaana igula kulmay xabsiga dhexdiisa oo uu ka soo saaray kombiyuutarkii lagu keediyay dhammaan qiraalkayga. waxaa kaloo ii weydiiyey 2 qof oo laga shakisanaa oo basaasiin ahaa, waxaana u sheegay in ay daldaleen Islaamic Jihad. Xamdi oo sii wada qiraalkiisii waxa uu yidhi waxaa xabsiga laga sii daayay 14 bishii Sebteembar sanadkii 1987, waxaana sargaal Mini uu ii sheegay in aan la soo xiriiro marka aan gaaro magaalada Khaza. ballan ayuu ii qabtay. runtii shirka wuxuu u dhacay sidii loogu talagalay, iyada oo sargaal Mini uu la socday gaari cad oo noociisa uu yahay Peugeot 404. waxaa gaariga la saarnaa shakhsiyaad kale oo dhar caadi ah ku labisnaa. shirka waxa uu ka dhacay goob xoog loogu deegaameeyey Yahuudda oo ku taala deegaanka Eris, waxaana uu ka dhacay qol ay yaalaan miis iyo kuraas. nuxurka shirka wuxuu ahaa sidii la igu sharixi lahaa oo la ii bari lahaa sida qalabka iyo aaladaha basaaska loogu dhajiyo ama loo dhigo bartilmaameedyada la doonayo in la beegsado. gabagabadiina waxaa la isiiyey 500 oo shekal, aniguna waxaan saxiixay warqaddii. dhowr maalmood kadib kulankaasi waxaan aaday deegaanka lagu magacaabo Layris si aan uga soo qaatay qalabkii basaas ee la doonayo inaan ku dhajiyo bartilmaameedyada ay doonayaan sirdoonka Israa'iil. sidoo kale mid ka mid a shirarkii aan la qaatay saraakiisha waxaa kulan aan kula yeeshay kabtan Mini iyo sargaal sirdoon oo magaciisa iigu sheegay Abu Sakhar. wuxuu ahaa sargaal ka sarreeya Mini. wuxuu i weydiiyey sababta aan u horumarin waayey dhaqdhaqaaqayga ururka dhexdiisa. waxaan u sheegay in xaaladda dhaqaale daraaddeed aan awoodi waayey inaan sameeyo sidaasi, xaaladeyda shaqana ay adag tahay. wuxuu iga codsaday inaan kordhiyo dhaqdhaqaaqayga si aan u gaaro mansab hogaamineed, islamarkaana aan ka mid noqdo madaxda dhaqdhaqaaqa ugu sarreeya gaar ahaan Xamaas. kadibna Mini wuxuu igu yidhi Abu Sakhar waxa uu ka tirsan yahay hoggaanka sirdoonka ee Israa'iil, ayna iga doonayaan inaan u soo gudbiyo xogo iyo macluumaadyo muhiim ah, sidaasi daraaddeedna la isugayo. markaan aan eegno khiyaano lacag ku bedelasho ah. kadib markii sirdoonkii Israa'iil ay xireen Maxamuud Abu Hayn oo maamulka Xamaas ka tirsanaa uuna xirnaa muddo ku dhowaad 10 bilood ah, Xamdiyo wuxuu ahaa mas-uulkii hogaaminaya ee hagaya sirdoonka Israa'iil isagoo adeegsanaya qalabkii basaas ee hore loo soo siiyey. wuxuu muddadaasi uu horkacayay dhaqdhaqaaqiisii basaas iyo sidoo kale xirxiristiisa saraakiisha Xamaas iyo Islaamic Jihad ka tirsan maadaama uu farmuuqayay. bilowgii Agosto sanadkii 1991, sargaal Mini ayaa ii soo jeediyey in lay xiro si aan sumcaddayda qaran aan kor u qaado, islamarkaana aan layga shakin. waxaan xirnaa muddo 5 bilood ah. sidoo kalena waxaa layla soo xiray walaalkay Fu'aad. waxaan muddo ku xirnaa xabsiga Naqab. kadibna waxaa la soo xiray Ciisa Abu Xaliima, Ayman Abu Hayn, Ibraahim Xamdiya oo aan ilmo adeer ahayn,
intaa kadibna waxaa xabsiga la iga sii daayey 12 bishii 12 sanadkii 1991. markii la isii daayey waxaa la ii magacaabay daaciga shujaaciya ka hor intaana la ii xirin 5 bishii juun sanadkii 1991. waxaana soo agaasimay dhoolatus ciidan oo dhallinyarada xamaas ka tirsan ay ku labisnaayeen dareyska ciidanka. waxay siteen ulo iyo tooreeyo si aan u muujiyo awoodda xamaas oo aan shakhsiyan ka qayb qaatay dhoolatuskaas. waxaasi oo dhanna waxaa isku duwaya oo soo saare ka ahaa sargaal mini, wuxuuna garanaya dhammaan dhallinyarada iyo shakhsiyaadka ka qayb qaatay dhoolatuska. taariikhdu markii ay ku beegneyd 15 bishii maarso 1992 sagaalkii subaxnimo ayaan kulan waxaan kula yeeshay xarunta sirdoonka Saraaya. fadhigan waxaa joogay kabtan mini iyo sidoo kale sargaal ka tirsan sirdoonkii Israa'iil oo lagu magacaabayay Abu al-Amjad. kabtan mini wuxuu ii sheegay Abu al-Amjad inuu la wareegi doono aaga aan ka howlgalaya ee shujaaciya, halka isaga ama kabtan mini loo dallacsiiyey xil sare oo looga magacaabay gudaha sirdoonka dhexdiisa. waxaa kaloo uu yidhi muddadaas waxaan qaabilay oo aan la kulmay Moxamed Khandiil oo ka mid ahaa shakhsiyaadka sida weyn ay u doondoonayeen sirdoonkii Muusaad. waxaan madaxda xamaas ay ka shirayeen sidii qaar ka mid ah hogaamiyaasha iyo saraakiisha sarsare looga saari lahaa magaalada Gaza iyadoo loo tahriibinaya dalalka Carabta. kadibna kulankii xigay waxaan la yeeshay Abu al-Amjad, waxaan u sheegay inaan la kulmay Moxamed Khandiil. xamaasna ay doonaysay in qaar ka mid ah saraakiisheeda loo masaafuriyo dibadda, balse wuxuu ii sheegay inuu iga caawin doono sidii aan u tahriibin lahaa. kadibna waxaan la kulmay Yaasir al-Xasanaad, Moxamed Khandiil iyo xubno kale. yaasir al-Xasanaad wuxuu iga codsaday inaan tahriibiyo Ismaaciil Darwiish si aan u tijaabiyo. waxaan intaas oo dhan aan u gudbiyey saraakiishii sirdoonka Muusaad, gaar ahaana sargaalka lagu magacaabo al-Amjad. waxaa xigtay kulan gaaban oo aan la yeeshay sargaal ka tirsan sirdoonka Israa'iil oo asna magaciisa la igu sheegay Abu Amiin. wuxuu i weydiiyey xog ku saabsan ururka Xamaas, madaxda iyo sidoo kale isgaarsiinta. waxaan u sheegay dhammaan xogtaas. kadibna waxaa soo noqday Moxamed Khandiil oo igala hadlay arrinta ku saabsan tahriibinta xuduudda ka baxsan iyo sidii hubka loo heli lahaa. markii dambe ayayna sirdoonka Israa'iil ii soo dhiibeen qalabka qaraxyada, gaar ahaana qalabka budada ee TNT loo yaqaana iyo kuwa kale. waxaan u sii dhiibay Moxamed Khandiil. intaa kadib 3 qof oo ka tirsan guutooyinka Ciisadiin al-Qasaam ayaa ku shahiiday intii uu socday iska horimaadkii u dhexeeyay Israa'iil iyo sidoo kale xoogagga, waxaana ay ahaayeen shakhsiyaadkii ay ku daba jireen sirdoonka Israa'iil. waxaa ka mid ahaa Yaasir al-Xasanaad iyo Marwaan al-Zaaya. xogta lagu dilayna aniga ayaa bixiyay ayuu yidhi. markaan aan eegno shirqoolkii Yaxya Cayaash, wakiil Xamdiya wuxuu ahaa shakhsigii ka dambeeyey dilkii shahiid Yaxya Cayaash, waxaana qiraalkiisa ka mid ahaa. sirdoonka Israa'iil waxay ii xil saareen inaan raadiyo injineer Yaxya Cayaash oo aan la fariistay isaga. waxaa la ii dhiibay bistoolad 16 qaad ah. bistooladii ayaan u dhiibay Cawad Salmaan oo ka mid ahaa gacanyarayaasha Yaxya Cayaash, wuxuuna iiga iibsaday qiimihii bistooladda oo gaaraya 1500 oo diinaar si aan ugu gogol xaaro in Yaxya Cayaash uu helo hub. Abu Farxaan wuxuu ka mid ahaa saraakiishii sirdoonka Israa'iil, si gaar ahaaneedna waxa uu ii xil saaray inaan la fariisto injineer Yaxya Cayaash. anigana Cawad Salmi oo gacanyarihiisii ahaa ayaan ka dalbaday inuu ila kulansiiyo Yaxya Cayaash. isagana wuxuu shardi iiga dhigay inaan u keeno qoriga M16 oo casri ah. intaasi kadib waxaan sargaalkii sirdoon ee Farxaan aan u sheegay arrintaas. waxaan ku wargeliyey in Yaxya Cayaash inaan la kulmi karaynin ilaa laga keeno qoriga M16-ka ah. isagana wuxuu dirbadiiba ii xaqiijiyey in dalabkiisii uu saraakiishii kale u sheegay loona keeni doono qorigii ay dalbadeen. qorshaha lagu gaari lahaa Yaxya Cayaash wuxuu ku xirnaa in isaga lagu soo jiito hubkaasi, waxaana sirdoonkii Israa'iil ay bilaabeen inay isiiyaan hub si aan ugu iibiyo labada shahiid ee kala Kamaal Kaahil iyo Cawad al-Salami. isla bishii May sanadkii 1995 sirdoonkii Israa'iil waxa ay ku adkaysteen in aan gaaray Yaxya Cayaash. waxaan damcay inaan sidaasi aan yeelo, balse waan ku guuldaraystay inaan gaaray inkastoo sirdoonkii Israa'iil ay isiiyeen hub aad u tiro badan si aan ugu dhiibay Yaxya Cayaash oo aan u sii marsiiyo shahiid Cawad al-Salami oo dabin ahaan ah. wakiil Xamdiya sidoo kale isagoo qiraalkiisii sii wata wuxuu yidhi xiriirkii aan la lahaa sirdoonkii Israa'iil waxa uu dhammaaday kadib markii sirdoonka Falastiiniyiinta ay xireen sanadkii 1995 maadaama la iga shakiyay in badan. sirdoonkii Falastiiniyiinta ayaa xiray wakiil Waliid Xamdiya kadib dabagal dheer oo muddo lagu hayay. kadibna inta uu xirnaa waxa uu qirtay wax walba iyo dhammaan falalkii khiyaanada ahaa ee uu sameeyey. maxkamadayntiisa ayaa ka dhacday xarunta dhexe ee ciidanka sirdoonka ee Falastiin
deegaanka suudaaniya ee magaalada khaza 17 bishii 2002 waxaana lagu xukumay dil toogasho. dembiyada lagu helay waxaa ka mid ahaa inuu ka dambeeyey shirqoolkii lagu dilay 5 hogaamiye iyo kaadiriin ka tirsanaa guutada ciisediin alqasaam. waxaa ka mid ahaa shakhsiyaadkii uu salfaday cimaad caaqil, yaasir al-namruuti, marwaan al-zayaag, yaasir al-xasanaad iyo maxamed khandiil. yaxya cayaash waa midka ilaa iminka muqaawamada magaciisa u isticmaalaan gantaalada ay cayaash ugu magac dareen maadaama uu ahaa injineer gantaalada u soo saara muqaawamada falastiiniyiinta. marka taasi laga yimaado, yaxya sinwaar wuxuu ahaa ninkii sida weyn ula dagaalamay sirdoonkii Israa'iil. si gaar ahaaneedna barnaamij ayaan uga soo diyaarin doonaa insha Allah. like saar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay.